wasiirka waxaan jecelahay inaad ila soo dhaweysaan idinkoo uga mahad celinaya waqti uu na siiyay marka saacad wasiir soo dhaw inta aan warbixinta u gelin waxaan idin wadaa bishaaro iyo salaanta waxaan idinka wadaa madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xasan oo baahnay nasashadaas marka madaxweynaha iyo wasaaraha waa idin soo salaamayeen aad ayaa laydinku hanweyn yahay kaalinta aad dalka uga jirtaan iyo waxtarka aad samaysaan adduunkana aan ugu faano firfircoonaanta soomaalida diasporada joogta bishaarada aan idiin wadnaa waxaa waaye waxaan idinku bishaaraynaa inuu mar dhow imaan doono London safiirka Soomaaliya ee Ingiriiska iyo Ireland insha Allah وما سيء معه فنانا نلتشو هذا الكلام كلا قيبية مركز سفيرة يا إيمان دونا ومدعية تبيسين وحكلو جرتين دلك إنجليز كو صفا دلك نوجو مهم سنة ودلك ميدا دلك maaragtay leh xubnaha joogtada Security Council-ka dalalka ugu dadaalka badnaa arrimaha Soomaaliya xagga supportiga iyo xagga advocacy-ga ama doodida shirar badan oo waaweyn qabtay xagga taageerada ama kaalmada dalka labaad dadka Mareykanka iyo ku xiga dalka ugu badan ee madax ay iyagu leeyihiin wasiirada ugu badnaa oo Soomaaliya booqday Ingiriiska ka yimaadeen ilaa hadda 5 wasiir booqday sanadahan ugu dambeeyay ahna dalka penholder-ka ama qalinka Security Council-ka resolutions-ka Soomaaliya ku aadan iyagu maaragtay soo diyaariya intaas oo dhan dalaynu sunnahay taariikh hore xiriir naga dhaxeeyay dad badan oo Soomaaliya oo ku firfircoon jaaliyadaha dibadda ay joogaan oo soo dhaweeyay insha Allah nolol fiican iyo fursado u abuuray iyagu inta safaarad ku lahaa Soomaaliya safaarad Soomaaliya joogta xamar joogta waxay naga mudnaayeen adaguna mudantiin in safiir aynu lahaano marka waa soo soconay waa soo daahnay waxaan ku xidhnay qofkaas waa soo daahay waa say maaha marka waa finally insha Allah safiirka iyo safaaradda waxbaan ka dhihi doonaa marka la gaaro talada laakiin
muusiga macuu ku tuurayo iyo saa u shacbinaysa waxaan garanaya inay aada uga xiisa qabtaan safaarad iyo safar wasiirka aad u mahadsan yahay weliba wuxuu jeclaa inuu dhinac kaloo lagu salaamo laakiin waxaan jecelnahay insha allah inaan su-aalo yar qofkii qabo aan siin doonaa raba inuu wasiirka su-aalo weydiiyo laakiin marka hore waxaan ka hormarinayaa fariista dadka taagan raalli ahaada fariista marka hore shahaado sharaf ay jaalidu ugu talagaleen ayaa jirta wasiirka oo ay rabaan inay guddoonsiiyaan marka guddoomiyaha jaaliyadda meelgaarka ah ayaa u yeerinaa doctor saciid oo rabo in wasiirka uu shahaadadaas siiyo shahaado sharaf ah oo ka socota jaaliyadda soomaaliyeed ee London soo dhow doctor siin siiyo dhalinyarada iyo abuukar cawaale laakiin waxaan ka hormarnay abuukar waa inuu xigtaa dhalinyarada soomaaliyeed ee London qaar macalin abuukar oo guddoomiyaha dhalinyarada ah arrinta badda ayaa xoogga saarayna maalmahan arrintaas ayaa culays weyn ka taagan yahay maalintood waxaa timid wasaaradda wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa timid dalka waddankan tabliiq ay ka samaysay afagaada ay u geysatay waddankii marka waxaan rajaynaynaa waxaan rabnaa su-aasheedu waxay tahay wasiir dadka ay la kulantay ama maaragtay anaga soo horkeentay ma la kulantay oo meelihii ay soo xirtay soo furta adiga su-aashiisa soo koobaamaadka lacagta qaabka looga baxdo waxaa la qiyaasaa inay miisaaniyadda dowladda loo isgaar badan tahay amnigiina qaabka laftigiisu dhibaato ku hayo waa askartii uu ka dhigayo maamulka ma isleedahay marka iyagoo uu diidiyo kastoo shaqada aysan ahayn wasiir arrimaha dowladda tahay haddii qaadka laga qabto arrintaas xalka bay ka mid noqon kartaa inuu wasiirka naga siiyo tadmiir inaysan jirin ka noqosho ama yani waxyaabaha nuxda ah uu noo caddeeyo waa midda koowaad midda labaad waxa ay tahay soomaalidu waxay u kala jaban tahay laba qaybood waxay ku leeyihiin annagoo ka tirsan jaamacad duwal carab war imaaraadkaa saxa may qadar baa saxa imaaraadkaana khaldaya qadar baa saxa Chatham House waxaan la hadlay dad fara badan oo William oo yaqaana Soomaaliya oo ka hadlay al-shabaab waxaan la hadlay William Ruto oo ah deputy minister of Kenya waxaan la hadlay ninka UN envoy oo ku saabsan sida dadka Soomaalida ah oo xitaa jooga Libya caruurteena raggeena iyo dadkeena yaryar oo maalin walba slavery lagu haysto Libya oo cidna aanay u hadlayn ayaa maalin walba markaan taga Chatham House ku idhaahdo Soomaaliyeed baan ahay Soomaali ayaan ku hadlaa laakiin dowladdeenu waxay u baahan tahay cooperation waxay u baahan tahay gacan in la siiyo wanaagsan oo aanan been laynoo sheegin annaguna inaanan been annagu aanan laysu sheegin su-aasha ugu horeysa waxay ahayd Monica Jumca dadkay la kulantay ma la kulantay marka Monica Jumcana ma weydiin dadkay la kulantay qofna ima soo sheegin laakiin hadda waxayna ka khuseeyaan bay jirin dadkay la kulantay aniga dad baa la kulmaa almuhiim waxaa ah in aynu maxaa la yidhaahdaa inaynu danteena naqaano dunida engage garayno oo aynu inagu danteena ka warano iyadana waa la sameeyaa su-aal ku xigta waxay ahayd qaadka ma kula tahay inuu maaragtay maxaa la yihahdaa xal yahay ninka su-aasha weydiinaya wuu sheegay inaysan aniga hawshayda ahayn maaragtay maxaa la yihahdaa prioritigayga laakiin waan ogahay isagu inuu campaign la dagaalanka qaad ku jiro marka isagaaba inuu ku filan la dagaalankiisa isagaa nooga xoogaalsanoo wixii uu ka sameeyey kolley wacyigelin badan buu ka sameeyey laakiin dhammaantaan anigu hadda waxaan aan ka idhaahdo qaadka dad Soomaaliya ka baac mushtarada dad Soomaaliyana waa cunaan waa eedayn karaa maanta oo dhan haddaan rabno
laakiin hadda ma xirxiri karo marka anugu kuma jiro dadka qaadka cuna marka way fiicnaan lahayd inaan iska joojino qaadka say la tahay su-aasha labaad waxaa waaye ka noqoshada badda oo lagu soo celceliyey maxkamaddii marka maalin kastaan ka jawaabay idaacadahan ka sheegay madaxweynaha ka hadlay kayskii annaga iyo Kenya isku haysanay oo badda ku saabsanay maxkamadduu jiraa maxkamadda caalamiga cadaaladda ayuu yaalaa waqtigiina waa la muddeeyey wax kasta oo dadka meelaha jooga ay sheegaanna kama jawaabi karo maalin kasta hadda anuu idiin jawaabay berrito hadduu rabo mid kale wax qoraa marka qof ay weydiina haddana dhaha ka jawaab marka maqaan waxaan ka sameyno laakiin waxaa idiin sheegaa kayskaas maxkamadduu jiraa sababta ay Kenya u xanaaqsan tahay oo culayska badan loogu haysana kaas weeye inaanan kayskii maxkamadda aan laga keenayn oo laga wada hadlaynin waaye waxaa kaloo ogaataan Soomaalidu waxay ku celiyaan meel kasta waa la kulmaa baddaan ka walwalsanahay marka waa fiican tahay wadaninimadu laakiin waa inaa ogaataa inaad keligaa wadani ahayn oo madaxda dalka jooga naftooda ay wadani yihiin dadka meelaha wadani yihiin marka marku kalsoonow in dadka Soomaalida oo dhami ay wadani yihiin dalka Soomaaliya jecel yihiin danta Soomaaliya ilaalinteeda jecel yihiin xuduudka Soomaaliya ilaalinteeda jecel yihiin marka naso oo nafis oo si fiican u seexo badda waxba ka walwalin kayskiisa maxkamaddu jiraa dowladda Soomaaliyeedna mas'uuliyadda kaga la fariisatay beesha caalamka gabadha halkaan ay weydiisay oo marka beesha caalamka maalin kasta waa la fariisanaa رماستي وزيرك عن سؤال مهم ويديو ودنك محكوم الله إلى سياسة سياسة وحنا بلشدة وسوقتي شقوين لو لوجها يبوين باجرة وحا الصومالي عن دنيا هل كان أؤمن وزيرك نكعد سنة أهل كان إن أوسيو maximum attention waxaa jira jeelasha UK waxaa ku jira 79749 ruux oo niman ah 3869 dumar ah foreign nationalist waa 9318 800 oo kamid ah waa Soomaali ilaa 11 jeer aan ku ziyaartay waxay ku xukuman yihiin xabsiyada dheer waxaa lagu haystaa wax la yiraahdo violent against persons, robbery, theft, drug offenses, sexual dadkaasi dhammaantood waxay doonayaan way ka niyad jabeen inta mental illnesses haysta waxay doonayaan prison transfer agreement waxaan ka codsanayaa wasiirka arrimaha dibadda amaana ilaahay hortii inuu qaado hadalkan dowladda kala hadlo dadkaasi sida safaaradda hadda aad sheegtay ee shaqayn doonta waxyaabaha ugu horeeya inay heshiis la gasho dowladda UK oo dadkaasi loo wareejiyo waddankoodii oo inta ka dhiman xukunkooda waa 28 sano waa ogtii waxay tahay inay ku qaataan dalkii waxaan kuu sheegayaa waxaa loo kala qaybiyey tuulooyin iyo magaalooyin fogfog waa lala diriraa waa la cunsuryeeyaa dib weynaa jiro waa mahadsantahay anoo soo koobaya waxaan weydiinayaa xuduudda Soomaaliyeed hoosteeda wasiirka laba su'aalood adigoo mahadsan sida warbixinta loo siiso oo sharaf leh marka aad ka hadlaysay dhaqaalaha inuu upward trend yahay aniga oo aan filaynay waxaan u baahanahay inaan ogaado haddii hay-adihii asadka waddanka
dhaqaalaha soo saari jiray qaar dad shibile ay haystaan qaarna ay dowladdu verification ka dhigtay ama adinka ama tii ka horreysay xaguu ka imaanayaa dhaqaalaha waddanka lagu rangaraynayo oo hay-adaha dowladdu ay isticmaalayso waddankuna oo dhaqaalo oo isku meelmariyo oo ku noqonayo midda labaad waxay tahay maadaama aad ka hadashay safaaradda oo ay safaarad noo furayso adiga oo maarata waxaan diyaar u nahay inaanu safaaradda garab istaagno waanan awoodnaa waana samaynaynaa waxaan ka ku weydiinayaa marka waxay tahay imisaad garantii nooga dhigi kartaa safiirka aad soo magacaawdo iyo koox yar inaysa gaar u riixan oo isa dadka inay kaleyn ka dhigto aada u mahadsan tahay walaashay gaar waxyar waa wasiir sultaan waxaa gabadha hadlaysa kale السلام عليكم ورحمة سأشهد waxay tahay horta aniga magacayda Sadeeq Muslaan waddanka Ingiriiska qualified teacher waxaan habeenii maalin aan dareemayaan gilkiisana waddankii inaan ku qabanin insha allahna waxaan awoodo waan ka shaqayn doonaa waddanka laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay dowladda noo soo iftiimtay ee aanu aragno diilo dad badan oo halkan qaarkood joogaan qaarkoodna guriga joogaan marka aad taageerto dowladdii waa la joorayaa marka su-aashaydu waxay tahay cuqubad baa jirta wasiir ah in dowladda imika jirta ay ku tahay duulaan maamul goboleedada marka su-aashayda it might seem stupid laakiin waa mid soo noqnoqonaysa oo lagu sheegayo lagu odhanaya taageerin dowladda because gobolkeena hebel iyo hebel ayay duulaan ku tahay inay duliso marka duulaan waxaa ku timiin inaad dulistaan maamul goboleedada duliisii caddee sida ay tahay xaqiiqa waxaan rabaa waxaan umaleey maraykanka hadday ingiriiska hadday jirto waxaan ka baranay waxa ugu yaraan ka baranay inay ka mid tahay inaynu isdhegaysano oo maamulka iyo waxaas baranno marka marka waxaa waaye su-aasha koowaad waxay ahayd prisoners transfer inaan samayno marka waa talo fiican innaguna waa isku dayi doonaa safiirka isku dayi doonaa annagu waa samaynaynaa laakiin sida uu ogyahay ninka su-aasha weydiiyey waxa weeyaa prison transferku wuxuu ku u dhexeeyaa laba dal marka waxaa annaga aan iska samaysan karno maaha dalka kaleeto waa inuu kaa yeelaa hadda kahor ayaan waxaan isku daynay maraan safiirka ahaa maraykanka inaan maraykanka heshiiskaasi la galno marka nooma suurtagelin inta badan prison transferka wuxuu agreementska la xiriira waxay ku yimaadaan dalalka xag iyo xaggaba dad ka jooga si dad dalkaa u dhashay oo dalkaaga dembi ku galay oo xiran hadday jiraan aada u soo wareejisa asaga naftiisu kelmadda u adeegsaday transfer marka exchange of prisoners marka waxay u badan tahay dalalku haddii aysan jirin dad ay kugu bedel dad iyagana dalkaaga dad dalkooda u dhashay oo dalkaaga ku xiran oo u baahan yihiin inaad aad soo wareejisa hadduusan jirin waxay u badan yihiin inaysa heshiiska kaa yeelin laakiin isku dayga awalna waa samaynay haddana waa wadaynaa rajadeedu waxay ku xiran tahay in lagaa yeelo hay-adaha dakhliga dalka hay-adaha dakhliga dalku horta sideedaba dakhligu adduunka oo dhan inta badan wuxuu ka yimaadaa private uu ka yimaadaa marka
ma aqaano dad baa hay-adihii dalka qabsaday iyo si xiriir oo la leedahay laakiin hadayto markaa warramaya waxaan sheegay in ganacsatadii iyo dowladdu isla shaqaynayaan oo ganacsatadii ay kordhiyeen dakhligii canshuurihii ay bixin jireen weliba canshuurta dalka hadda soo gasha inta badan waxay ka timaadaa magaalada muqdisho keliya maadaama dalkii uusan weli goboladiisii oo dhan isla wada shaqaynaynin